السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. maalin maalmaha ka mid ah dood kulul ayaa dhex martay nin iyo naagtiisa. markii dambena waa uu furay, wuxuuna ku yidhi kuma soo ceshanayo ilaa maalin aad u shar badan oo wax nuura lahayn maahane. xaaskii way baxday, waxayna aaday guriga ehelkeeda iyadoo ooynayso. ninka marka ay carada ka degtay ayuu shallaayay, wuxuuna dareemay khatarta ka imaan karto waxa uu sameeyey. wuxuuna aaday oo fatwo u doontay sheekha tuuladooda. uu la kulmay, wuxuuna uga qiseeyey arrinta qabsatay. sheekhii waa uu ku wareeray arrintiisa, wuxuuna ku yidhi xaggeen kaaga keeni karaa maalin shar badan oo wax nuur ah lahayn. kuma heli karo wax jawaab ah, ninkaagaan qallafsanow. laakiin waxaan ku dhihi lahaa waxaad u tagtaa shiikha magaalada, asaga ayaa iga cilmi badan, una sheeg qisadaada. hadduu alle idmo wuxuu kuu heli doonaa xal. ninkii wuxuu ku laabtay gurigiisa asagoo murugaysan, wuxuuna isku diyaariyey safar maalintii xigtay. laakiin xilli dambe ayuu soo toosay, maxaa yeelay aad ayuu u murugaysanaa. wuuna dhafray, wuxuu u degdegay uuna aaday sheekhii magaalada, wuxuuna uga qiseeyey arrintiisa. laakiin sheekhii magaalada ayaa ugu jawaabay sidii uu ugu jawaabay sheekhii qaryada. inteen kaaga keeni karaa maalin shar badan oo wax nuur ah lahayn. waa u baxay asagoo murugaysan, aanan garanaynin wax uu sameeyo, ilaa uu gaaray suuqii magaalada. wuxuuna fadhiistay meel keligiisa asagoo aad u murugaysan saacado badan. wuxuuna hor fadhiyey meel kushki ah oo lagu iibiyo khudaarta. waxaana u yimid ninkii kushkiga iska lahaa, wuxuuna ahaa nin haybad ay ka muuqato, lehna dabeecad wanaagsan. wuxuuna weydiiyey dhibka haysto. markii uu arkay inuu fadhiyo wax ka badan saacad, wuxuu uga sheekeeyey qisadiisa ninka kushkiga iska leh. uuna waayey sheekh u fadwoodo, wuxuu ku yidhi asagoo hadalka u dejinayo, maanta ma tukatay salaada subax? jamacana ma ku tukatay? masaajidkana ma ku tukatay? mise gurigaaga ayaad ku soo tukatay? ninkii wuxuu yidhi taasna ma ahan, tanna ma ahan. waxaan soo toosay fajarka kadib. ninkii kushkiga iska lahaa ayaa yidhi ma nooshahay hooyadaa? hadday nooshahay ka waran xaalkeeda? wuxuu yidhi ninkii haa, hooyaday way joogtaa, laakiin maanta ma aanan arkin. waxaan soo baxay aniguo degdegsan. kushkiilihii ayaa yidhi maanta ma akhrisay qur'aanka? ninkii asagoo caraysan ayuu yidhi waan kuu sheegay, waxaan soo baxay anigoo degdegsan, ma aanan tukan salaada subax, ma aanan soo booqan hooyaday, qur'aankana ma aqrin. intaasba iima suurtogelin. wuu dhowlacdeeyey ninkii kushkiga iska lahaa, wuxuuna yidhi orod soo cesho xaaskaaga. ma jiro maalin ka shar badan oo ka mugdi badan maalintaadan, mana lahan wax nuur ah. ma aadan tukan salaada subax, mana aadan soo booqanin hooyada si aad u xasiliso qalbigeeda, aadna uga dalbato duco, mana aadan aqrin qur'aanka kariimka. warnin yahow orodow soo cesho xaaskaaga. ninkii waa uu farxay, wuxuuna madaxa ka dhunkaday ninkii kushkiga iska lahaa, wuxuuna ku yidhi waad i badbaadisay, iga dalbo waxaad doontid, waa ballan, waan ku sii doonaa. ninkii kushkiga iska lahaa wuxuu yidhi aniga alle oo keliya ayaan wax weydiistaa. haafilkaanow, rabbigii hadda kaa farxiyey oo kuu soo celiyey xaaskaaga adigoo sameeyey ficlo xun, siduu u noqon doonaa karamkiisa marka aad wanaajiso afcaashaada? ninkii wuxuu dareemay inuu gaabiyey xaqa uu rabbigiisa ku leeyahay, wuxuuna ogaaday dhibaatooyinka soo maray oo dhan inay yihiin wax isagu uu isku keenay. asagoo yaax dareemayana wuxuu ku yidhi ninkii kushkiga iska lahaa hadda ayaan gartay dhibaatooyinkayga. kuma tukado salaada subax masaajidka, mana aqriyo qur-aanka, sidoo kale ma soo booqdo hooyaday. fadlan haddaa ka hesheen qisadan ay idin cajabgelisay, like saara, nagu soo biira oo sabskraib dhaha janaalkeenna Bishaar Action. aad ayaad u mahadsantihiin.